بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. أمد الصومالية ميلاد جوجتان وإذن سلامينا. إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة يا عدي بندبك إنه إلهي كقاضو عدي حاجة يدن له إلهي إنه أفضيه أنت حنوسا الله عافيه أنت لمتى الله ونحرسته واردين تين الله ونحرسته إننا الله إنه كذا ونحرسته. أمد الصومالية كنا الجيس كأفريقيا إلهي سبحانه وتعالى دجان يضبها بدبادي. ما أنت وحشرف نوعه إن مدشة لو ذا أجنو أو كمر تجرينو سياسي جنوين كوعداء أريمها أفريقيا aad ula socda iyo historygeeda iyo xaaladaheeda oo dhan isla markaasna nin ku dhiiran waxa saxda ah inuu sheego khatar kasta hadii ay soo wajahayso. waxaan ognahay gudoomiyuhu inuu ka warhayo una dhuundaloolo siyaasadda iyo biyo dhaca siyaasadeed ee geeska Afrika oo dhan. gaar ahaan maanta waxaan awoodeena saaraynaa isbedelka ka socda nabadgelyo ee ka socda meesha la yiraahdo dalka Ethiopia. waxaan ogaan doonaa dhowr qodob baan ka jawaabi doonaa, bal horta marxaladda hadda ay ku jirto waxaynu ogeyn maalmo dhaweyd nimankii Tigray la oran jiray Tigray iyo dawladdu hadday dareereen in Tigray laga adkaaday, gobolkoodii laga qabsaday, dibadda ay u yaaceen, buurahaas ay galeen, adduunkii oo dhan qaylo afka furtay, western countries-kii oo ugu weyn yahay Maraykanku, sababtuna ay ahayd lobby adag oo ka socda Washington oo lacaga badan ay ku bixiyeen, iyo UK labada qolo hormuudka ah western countries-ka ama wadamada reer galbeedku inay afka furteen, inay qaylo iyo buuq iyo qoob iyo wax kasta isku dareen, inay hay'adihii u isticmaaleen ma garanaysaa ahaa hay'adaha samafalka ay u isticmaaleen way ama wado ay ku mariyaan hub iyo lacag iyo dhaqaale ay ugu geeyaan, inay isticmaalayeen miidiyahoodii oo dhan iyagoo garab taagan Tigray, sababtuna ay tahay inay rabaan Tigray inay soo noqoto si interestigoodii u shaqeeyo. waxaan ognahay in madaxweynaha pressure tira badan prime ministerka la saaray kadib uu ka baxay gobolka Tigray. kadib waxaa bilaabatay iyagii inay offensive bilaabaan oo ay weerar bilaabaan. waxay ugu dambeyn soo gaareen meel aad ugu dhow magaalada Addis Ababa oo 320 ilaa 350 kilomitir u jirta. laba magaalo waaweyn oo Dessi iyo Kambaluja ayay qabsadeen. halkaasay xaaladdu taagnayd 2-3 beri ka hor. waxaan rabnaa gudoomiyuhu intuu ku soo boodo bar horta xaaladii halkaas maraysay meeshay isu bedeshay iyo dhankay aaday inuu dhageystayaasha ka qabtiro. ku soo dhaw gudoomiye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شو عبد حرسي يا عبديو وركا هدا ugu dambeeyay baan ku sheegayaa nimanka waa laga qabsaday magaaladii Kombolcha, waa laga qabsaday magaaladii Dessi, waa la sii cayrinhayaa, gobolkoodii bay dib ugu cararahayaan. dhulka iyo cirka iyo hawada labadaba waa laga weeraray. ciidankoodii oo baxsan hadda inta badanaa waxay ku qasban yihiin inay maalin kala dhuntaan oo tuulooyin fara badan oo ay markii hore qabsadeen oo wadadii ay ku soo socdeen ay ku dhuntaan. habeenkiina marka ay meesha ka baxaan iyaga oo u sii cararaya fircadkoodii uu xagga u sii socday iyo dhulkoodii. marka way jabeen, Tigray way jabtay, waa laga adkaaday, dhanka Cafartana waa laga adkaaday, dhanka Amxaaradana waa laga adkaaday. labadaba hadda ciidanka qaranka iyo maleeshiyaadka la dagaalamayay oo barbar socday ayaad moodaa inay guusha ay ku taagan yihiin, ay ku fadhiyaan. hadda meesha la isku tagi doonana waa gobolkoodii. waa gartay. marka labadii magaalo hadda waa laga saaray oo waa ka maqan yihiin
gacanta dawladdeena dib ugu soo noqotay iska dhaaf advancement iyo inay horey ugu soo socdaan Addis Ababa iyagii baa dib loo cayrsanayaa kor iyo hoosna dib warar baa kaga socda xogta ugu dambaysa waa intaas waxaan ku barakeeyo waxaan ku weydiinayaa waxaan ognahay weerarka western countriesku ama wadamada reer galbeedku inuu ka sii darayo waxaan la soconaa laba beri shalay inay ka saareen Facebooka ay ka delete gareeyeen ninka la yiraahdo Abiy Ahmed message uu lahaa dadkiisa kaca oo dawladda garab istaaga oo qaata hubka oo difaaca dalka isagoo uga digayay inay iska difaacaan niman uu ku tilmaamay argagixiso una bixiyay argagixiso waxyaabihii lagala hadlay waxaa kamid ahaa inuu ka saaro liiska argagixisada waxaa kamid ahaa inuu ogolaado wada hadal waxaa loo soo diray envoy maxaa dhex maray أنا ورك هذا أنا هي وحويان إنفوجي إنه very low key لقد جاي أبي وصل أركن لفري سرين قلت مع إنك لورني صح مريكن كإنترست جودا أي كشقين يعني رجل بد إنترست جودا أيه وح كترجمة مركي هرا نمكي تي بي إل إف لورنجري واجد وحفرب بدن بيوهين كهرانا وهي هي هيد حكمكي هاي السلاس كي كلا والله بنحضر أها وشيوعي أنا ولا حساب تمي ومن قصته أها مريكان كانوا ولا حساب تمي أيقو آدي ما رأيتي وقد يعني عاطفة الدين تا كو حساب تمي من قصته هو هانين قلان قلبضن سيب الديالكي لو نشري أوجدن وو مركل لو قاضي إنه كسبض لبض النعو دمعي لبض النعو كسبض رنتي والله أسمري مريكان كان والله أسمري شيوعي أها روش كانوا ويكيبري ولا وريه مركا هرت مركز طبعا بريا هوري إليت ك إثيوبيا معمولة أو جنر كذا عنده كوهاي والرجال بيد قرب بدن كهري شري وهي أنا محارضة لكن صدق سنة كله إذا صورنا في هذا وحكى له وريجي ما كنت تقرأ ده ما كنت تقرأ ده يقول مثلين جيسك أفريقيا حلقة مس دورك أوهيان إسرائيل وميدل إيست وجهيو مرة ومركا إن أي ماشاس وvalued and a treasure وحالها وحال لو قيمان هي وذهبي أو حلفي أو دنا هذا الرجال بعد ما عرفت أفرنجري مركز طب إن ماشى لقى وكبح داوع وين بيكون نقطي دربح وين بيكون نقطي سيسوعين لها بفلك هذا قوان هيان مركا ما نفض السيل السوعين لها ninkii ay soo dirsadeenna waxaa la kulmay wasiiru dawladda hoose la kulmay prime minister ku waadiday inuu la fariisto لوكي نتا minister حتى وزيركي substantive minister كلا مكلمين nin hoose la good waxaa ka horeysay inuu diiday Samantha Power inuu la kulmo iyadana oo ahayd halka Faarax waxaan ka garan karnaa Soomaalida wax badan oo aan u sheego ay maqli waayeen adiguna aad marar badan sheegtay NGO-gu waa spies waa jawaasiis ka tirsan ama garabka jilicsan ama soft power-ka dawladuhu ay leeyihiin USAID waxay ahayd hay'ad la rabay inay kaalmo keento iyadoo Biden matalaysay tiri waxaan la fariisanayaa prime ministerka ords ka tag buu yiri meelahaas dad kale raadso yani Soomaalidu inay wax ka barato waxa hadda Ethiopia ka dhacaya midda labaad in aysan absolutely dan ka lahayn dhimashada iyo dhaawaca iyo dhiiga iyo burburka iyo dhibaatada wadamada reer galbeedka ah aysan waligood dad wax u qaban khaasatan Mareykan waligii dal uu badbaadiyay oo wax u taray oo wax u qabtay lama arag oo uu dhisay marar badan baad ku celcelisay inay Soomaalidu halka wax ka bartaan bay u baahan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan meeshaas aan ku daro su'aasha igu xigta ay tahay Somali State gobolka ismaamulka Soomaalida waxaa ka dhacay shir degdeg ah 3 habeen ka hor 2 habeen ka hor golaha wasiirada iyo kabinetka madaxweynaha shiray waxaa lagu heshiiyay oo la isla qaatay go'aankii prime ministerku uu qaatay oo ahaa emergency-ga in la fuliyo labo in aan la ogolaan haba yaraatee inay Tigray maamul ay leedahay dib ugu soo laabato Ethiopia saddex in aysan suurtagal ahayn Addis Ababa inay yimaadaan oo ay diyaar u yihiin Soomaalidu difaac iyo dagaal galaan
halka opportunity intee la eg baa ku jirta oo Soomaalida ugu jirta saan ognahay Soomaalida Ethiopia waa marginalized waa dad macnaha la faquuqo dawladdan dawlad ka horeysay oo xataa soo dhaweysay ama u ogolaatay xorriyad inay yeeshaan ama ay iyagu iska madax bannaanaadaan oo ay dhaqmaan ma jirin ciidamadooda waxaa laga ilaaliyaa oo lagala dagaalamaa saddexdii dawladood oo isku xigayba inay ciidan ba yeeshaan baa laga ilaalin jiray kadib markii xoogaa loo ogolaado tansiiqii u dhacay Tigreega iyo iyaga oo ciidamada loo ogolaaday liyu booliska la qoray waxaa laga ilaaliyay hubka waaweyn oo artillery-ga ama heavy duty-ga ah inay gacanta ku dhigaan opportunity intee la eg baa jirta maadaama Soomaalidu ay diyaar tahay sidee baan se uga faa'iideysan karnaa dawladdana u weydiisan karnaa inay hubkii waaweynaa markaan gacanta noo geliso maadaama ay u baahan tahay iyadu Sheekh Cabdi Xirsiyow fursadda maanta Soomaali ay ku haysato geeska Afrika siiba Ethiopia ay ku haysato waa mid dahabi ah oo 140 sano aan soo marin laakiin de fursad kasta oo samayso waxa loo baahan yahay cid ka faa'iideysan leed meesha ay jirto waagan nasiib xuma waxay ahaayeen Soomaalidu qowmiyad adduunka hadda ka hor quwadaha ka soo jiray bay ahaan jireen مثلا Soomaalidu waxay ahaayeen maritime power bay ahaayeen 600 sano laga joogo صح oo markabka Beden la dhaha oo dadka hagaajin jiray bay ahaayeen Beden waxay ka duulaan tagi jireen oo iyaga hadda reer galbeed pirates bay ahaan bay dhahan laakiin waxay ka duulaan tagi jireen ilaa iyo Indonesia iyo Chinaha iyo dhulalkaasayto ayay maaragtay ay marakibta maaragtay ay maamuli jireen maritime trade ka bariga jiray waagar Soomaaliya waxa la dhahaa the land of frankincense and spices baa la dhahaa صح buntu taariikhda kaga sheegay spices ka Soomaalida ma beeri jirin frankincense beeyada maxaa la dhahaa bahashan beeyada iyo maydiga iyo way ka baxaan malmalka iyo waxyaabaha la midka iyo oo maaragtay preservation of humans ka lagu sameyn jiray oo dadka ay sifo uusan qofka uu oo Tutankhamen iyo faraacinta isticmaali jireen waa laga qaadi jiray laakiin spices ka waxa laga keeni jiray India iyo Indonesia iyo meelo badan baa laga keeni jiray laakiin habka la isugu keenayahay la maya Soomaalida marakibteeda ay waxay ku qasbeen macaljiinaha inaana meel kale la geen karin markay keenaan ay keenaan dekadaha banaadiri waxa banaadir loo yiraahdo waa dekadihii farada badnaa oo xeebta Soomaalida ku dhayaa meesha ku yaaleen kuwaasay maaragtay ku qasbi jireen boqortooyada maaragtay maxay ajuraanka boqortooyada maxay ahayd Gobroon boqortooyo far badan oo jiri jirtay Biyamaal ay ku qasbi jireen in maaragtay la keeno meesha waa quwad waxay ahayd ka adag Portugeeska iyo Isbaaniyolka iyo reer galbeed iska wada iyaga laakiin Eastern powers ka sayto markaa ka adkaayeen ma sha Allah Arabta markaa waxay soo dooran jireen meeshooda oo meel kasta laga imaaday cadaanka iyo ilaa Greek ba looga imaan jiray dhulka Soomaaliya waa looga imaan jiray laga garan jiray suuqa meeshaas waxay control jireen all those maritime trade ma sha Allah Suez Canal markaa ma jirin ogaad waa sax inta la furin bay Suez Canal inta la hagaajin bay marka inta kor ka soo wareegsadaan oo meel kasta soo maraan bay keeni jireen marka waxaan ku wadaa dadka sida maanta waxay u badan yihiin aqoonyahan wax isku tilmaami lahaa NGO-ga hadda adiga aad sheegayso waliba ko ugu liito oo farsamaha oo gacmaha dadka afka Soomaaliga waa Tom Kono baa lagu dhahaa kuwa gacanta ku shaqeeyaan food soldiers food soldiers exactly waad heshay food soldiers weeyaan oo la dirsanayo Arab baa dirsan Afrikaankii ka agdhawaa baa dirsan cadaan baa dirsan meelahaas orday beesha caalamka meelaha la orday ma oga inay qaran yihiin iga baxa kali haday dhahaan dadka barkood ay baxayaan oo ay wada kala haysan waa sax ninkii isduleeyo qoom ilaahay ma bedelo illa ma iyaga isbedelaan اساس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى ان يغير ما بانفسهم
marka horta waxa weeyaan waxa waaye annagu dhib baan haystaa soomaaliguna hadda waxa weeyaan aan ku sheegay in aad ii dhegeystaan rabaa haye hadda gabadha tigreeda oo shaha gadayso oo macdaar yar oo maxay ahayd $2 $3 maalinka ay shaqaysanayso oo makale joogto waxay ku riyoonaysaa inay arsaba qabsato iyada dekada xamarna ay qabsato صح wiilka askariga oo tigreega oo laba aliflaha sidii gabre oo kale gabre laba aliflaha turbataariyaad wuxuu mooyaal joogtay wuxuu ku fikirayaa inuu maaragtay hamigiisa iyo hankiisa wuxuu joogaa meel aad u korayso aqoonyahanka Soomaaligana hamigiisa hankiisa waxa weyn ka inuu kaba qaad u noqdo صح wey gabre iyo wax lamid inuu kaba qaad u noqdo صح wey oo iska gada kuwaas iyo hala yaro dhaqaale iyo cadaan yaro intii loo qosqoslay jilbaha isla dhacay iyo hala yaro af Ingiriis oo aan isku toosnayn la hagaajiyay sidii kii hadda aad sheegaysay oo ka hadlay Ingiriiska oo Mareykanka oo sagaal urur oo isu tagtay waa u imaanaynaa ninkaas waa u gudbaynaa intaynaan ka bixin NGO-yada Soomaaliya dhowr nin oo NGO-ye ah dhowr nin oo ajnabiyay waddanka waxay ka siisay persona non grata waxaa ugu dambeeyey Malungo Simon ku-xigeenkii African Unionka Amisom u fadhiyey waxaa afka furtay kuwaas aa sheegay sidoo wada food soldierska oo Twitterka fadhiya oo social media educators noqday kulli afkay furteen waxaan arkayay mid madaxweynaha u sharaxanayo la weydiiyey shir jaraa'id baa qabanaya 3 qodob oo nan relevant ka hadlay markuu dhameeyay ninuu diyaarsaday oo su'aal weydiiyay baa su'aal weydiiyay hatta Chinese male hal qofna ma heli karo ninkaas president u sharaxanaydaasa intaasa isaga wax weyn la markaas la yiri nin baa waddanka laga cayriyay maxay kula tahay nasiib darro way Soomaalidu ay gashay Soomaalida taariikhda iyo historyga iyo recordka u galaysaa buu ku leeyahay fulaynimada inta la eg bay la wada taagan yihiin wadada iyo meel kasta hadda waxay u sacbinayaan TPLF oo TPLF soo tii 100,000 oo Soomaaliyeed dishay maaha oo gudaha iyo dibadda ku kala dishay Soomaaliya iyo Ethiopia gudaheeda ku dishay way u sacbinayaan waxaan 60,000 bay ku dishay Ethiopia gudaheeda 40,000 magaalada xamar baa lagu dilay 100,000 oo qof oo Soomaaliya nimankii dilay bay hadda u sacbinayaan oo ay meelaha u fadhiyaan oo nacnacda iyo waxa ka dhacay aad yaabaysa waxa kale oo la yaabay ninkaas aad sheegaysid waxa la yiraahdaa Maxamuud Ugaas wuxuu yiri waxaan ahay Somali State baan matalaya representative-ka Somali State baa halkan laga kaxaystay magaalada aniga ii dhow Edmonton la yiraahdo ayuu xafiis yar ku leeyahay oo meel kora oo NLF buu ahaa marka kuma dhaco inuu yiraahdo oo NLF baan ahay way og yihiin oo NLF argagixisay ugu qoran tahay inuu ka tirsan yahay waa og yihiin laakiin waxay leeyihiin bal magac iska bedel si aan ku isticmaalno oo magacaan qaado magac baa loo dhiibay Edmonton buu degan yahay dhowr iyo 10 sano deganaa Edmonton iyo Calgary iyo areadan waligay ma arag wax la yaqaan maaha ninkan hadda la hadlaynay waa weydiiyay waxa war muxuu ahaa xafiis yara buu ku lahayo applicationadu buuxiyaayo dadka group 5 ka xireysta dadka applicationka lacagta kaga qaato weeye shir jaraa'id buu qabtay wuxuu yiri dawladda shir jaraa'id waxa fadhiya meediyihii western oo dhan baa fadhiya mainstream media wuxuu yiri dawladda Ethiopia waxaanu kaga saaraynaa by force buu yiri meesha hadday diido negotiation by force markaas ma violence bad ku yani hatta ma garan karo meesha uu taagan yahay iyo media hor fadhiya waxyaabaha la iska ilaalin karo diplomatic magaranaysa sloganiska iyo waxa beenta ah oo la isu sheego annagu dagaal ma wadno baa la yiraahdaa adoo xabada ridaya annagu dagaal ma wadno nabad baan rabnaa annagaana la soo weeraray qolo sheegata in la iigu weerar yihiin ninkaa ka hor ma arag oo media ka hadlaya magarad marka bal ku soo dhawow maxay ahaayeen kuwaan meelaha lagu hagaajinayo oo la soo kaxkaxaysanayo Soomaalidu waan ku soo hormariyay waxaan ku yiri gabadha shaaha ku gada hayso Mekelle iyo Adigrat iyo Adwa iyo ku gadayso oo gobolka Tigray hamigeeda wuxuu ka dhaadhacsan yahay inay Ethiopia oo dhan ay qabsato
كي لو ألف لهنا إنه هيجي كنا مقصود روح outward كوربي فيريان كوربي مسكح ذوذي يهمي جوذي هنكوذ مارس الوجود كان صومالي PhD مركي وقات هنكيسي عند وذا إنه كنا قضاء تخصص inward إنه بدنا بابيو ها نيجا صومالي كقري أيام لويس كقري نص مك أقول كستوليه شنو توني المركز شيكيستان أو كشيكيستان أدونكي الصومالي عنك وهوس وقلها هي الرهب البان هي والرهب البرهب الكهاي كم بيتاي وحي صور نبص على كشيكينا يا أون صومالي قلها وذا واقف وهل قوس أو اسكو صورة اسكو الدين اسكو مذهب كل وضع شيء صح يا هذا فهم اللي يجلب يقولوا وسكسو توصي ما أنت كشيكين ما أنت ولا مرمر وحنا ورواد لما تفارحوا صدن يدور سنة تاني دلني يرى عمل كان هو أرضي عنها يعني نقول لها وروح شرفت نسيد اللي السعودية وهالشو إلهي بابا وطلق لك وين إن القيب صد وذا هذا كور بنين كينيان أو لوير أو صاحبنا نصدق عنه يا وحقوري سوالي هلا قيب صد الله ودن هلا يدي نصنا قاتل إثيوبيا نصنا كينيا قاتل ninka saa ku fikiraya waa nin reerka uu ka dhashay 60 sano horteed ay uga qaawan socdeen hadda been ma waza way hadda bay qaawan yihiin barkood turkaanada kan uu leeyahay aan qaybsanana 7,000 oo sano ayaa taariikhda lahaaya inay haysteen xadaarad yes wadi fahamtay soo yes marka waxaan xusuustay Haile Selassie wuxuu oran jiray war Soomaali nation ma aha واقر ودد هير غراو علي يترسن مركو اورجري امبراطوريه إثيوبيا كترسن واقر امبراطوريه إثيوبيا wax ka horeysay ma ahayn halgankii iyaga dhaxdooda islaan jireen oo adi meelix waqtigiisa oo dhulkan farada badan oromada iyo maxay gambeelada iyo meel kasta banishingul gumus ilaa ay Soomaalida meel kasta ay gaareen واقر ayagoo gunpowder ka regal bedkelan isticmaalaya ما شاء الله marka ninka gasaan ku sheegay gabadha jaahilka la arkay waligeed inay iskuul gelin hankeeda iyo ninka PhD haysto oo Soomaaliga hankiisa waxa la isbarbar dhigi kara maaha tana ana hadda markaan ku dhaha markaan ku soo dhigayso wada waa loo yeertay unka صح kuwa saa u hadlay waa loo yeertay waxa la arkay halka shayga uu ka xun yahayna inuu jeclaa mid asaga ilma adeer sokay isku yihiin oo ka noqdo madaxweynaha gobolka inta kaliya la isku haysto inta kaliya Mustafa Cagta meesha laga qaado waana isku reer hoose oo beel bayeen oo isku wax kasto dhan kor iyo hoos iyo meel kasta laakiin haddana markii hoosta loo kaco meel yar oo loo kala duwan yahay kaliya is leeyahay suuq ku helay kan inuu meesha fadhiyo marka inuu telefon noqdo oo diyaar xamar ku joogay baasaay Kenya ku joogay aqoonta lahaa oo jaamacadaha ka soo wada baxay madaxtinimada ku daraadsanay baasaay Djibouti warnay oo dib baa haysta ummadda Soomaaliyeed ilaahay un baan bariyana hadda inuu bari hore aruu dadka maxamed saad barra iimaanka la naga qaadi jiray hadda waxa weeye iimaanka la digu soo in la dhaho rabdoonka istisqaal la sameeyo salaat istisqaal ilaahay xikmad inuu Soomaali ku soo rogo oo hal habeen dadku isbedeli aan aragno inaan meel kasta aan maartay u duceysana loo baahay azaw yaadi waxaad ka hadashay danaha reer galbeed baad ka hadashay iyo wiilka Museveni oo generaalkaas u hadlay iyo aabihiisa u hadlay baad ka hadashay ninka la yiraahdo intaana kaa gelin siyaasiga aqoonyahanka Soomaaliga waxaa jirta mahmaah aan marar badan isticmaalo education makes wise a bit wiser and morons ama idiots more dangerous battery waa kood hore u jiray qofka aqoontu haddii uu wisdom leeyahay maskax iyo caqli waxay ka dhigtaa little bit more wiser xoogaa yar bay ugu dartaa waxbay isugu hagaajisayo waxbay isku wadaadiyaa laakiin hadduu marka hore idiot yahay oo maskaxda caqli uusan lahayn oo caqli iyo garasho uusan u dhalan dangerous ka dhigtaa oo khatar baa dadku ku baabi'iyaa waa marka waa inwardka ashaysa anigu igula soo noqonay war anigana wax igu tartaan rabaa aqoontaadu inay aniga wax yeesho adiga ka shaqeyso wuxuu ku leeyahay jareer la cayriyay wax yar baan rabaa inaan Soomaalida u sharaxo ninkan
ninkan la eriyo Malunga la yiraahdo nin waxa weeye lagu eedeeyay sexual assault naag Maraykan oo cadaan oo Fiona la yiraahdo oo UN ta u shaqeysa sexual assault ku eedeysay pressure baa la saaray UN ta pressure saartay iyagii si aysan isugu dhicin AMISOM African Union ka iyo UN ta aysan isugu dhicin baa markaas la yiri drop gareys naaga Soomaaliyeed oo fuulay oo kufsaday baa la sheegaya xoog ku kufsaday waxa la sheegayaa kuwa loo geeyo oo naaga la shaqeeyaa jiro u geeyaa la yiri naagaha ninka weyn oo Soomaaliga ah oo intuu soo istaaga media ka difaacaya marka lagaba tago dawladnimada iyo dhibaatada uu geystay iyo xogaha liiga ah oo soo baxay oo isaga uu hadalla uu qoray oo Soomaalida kaga hadlayo qabiil uu kaga hadlayo oo shakhsiyaad madaxa uu caayay iyo waxaas xagga idhi war ninka ay gabdhihiini ka baxsan waayeen maxaad ku difaacaysaa hadii laga cayriyo wasakha muxuu ku hayaa waxa la yaab leh Faaraxo oo aad aan wala yaabay waxaan la xiriiray qolyaha airportka area-diisa iyo ka shaqeeya AMISOMna waa tan meesha xalana ka samaysatay waxay igu yiraahdeen baad buu ka qaadaa ganacsatada nin Miki la yiraahdo hadda lagu daba jiraa u jooga la yiraahdo oo ururiya ganacsatada wuxuu yiraahdaa hadii aadan extortion hadaadan isiin lacag waxaan fiiriyaa liiska argagixisada okay hoteelada laga dhex dhisaa meesha kuwa hoteelada dhistaa 1% bay siiyaan baa la yiraahdo oo lacagtooda ay si joogta ah hoteelada meesha laga dhex dhisay $100 baa lagu seexanayaa 1% buu leeyahay ma shaqaysan iskama leh waa ajnabi waxa soo dhan ma garanayaan يعني dadkii maskaxdii baa dulowday oo dikhowday waxaan u soo gudbayaa arinta Uganda waxa kamid ah mid maalin dhaweyd ka hadli jirnay oo ahaa sahan research oo 5 sano lagu xukumay waa difaacayaan banaanka u taagtaagay kuwa madaxweynayaal ahaan jiray baa difaacay oo banaanka taagan waa laga gardaray wanin maxkamadda xukuntay waxay maxkamad maaha waxaasi waa kangaroo court oo marka ninkan intaas oo sifuul ahaa oo la sheegay iyo ka daran bay difaacayaan aqoontii marka anigu igula soo noqday inuu aniga igu baabi'iyo oo dalkayga uu balaayo gacanta u galiyo oo layga danaysto oo sidii la doono layga yeelo yani waa wax la yaab leh ninkan Uganda uu dhalay Museveni ina idab daro ku hadlay oo wuxuu yiri ciidan baanba u diraya Ethiopia oo ana badbaadinaya Tigray wiilkiisina Twitter laba abu soo qoray wuxuuna yiri walaalaha iyo Tigray will not be defeated ciidanka ugu horeeya anaga diray ninkan isaga ah iyo Maraykankuna waxay sameeyeen waxay leeyihiin maadaama uu diiday inuu la kulmo ninkii infoyga ahaa citizen-koodii bay waxay ku wargeliyeen inay iska soo xaadiriyaan safaaradda waxay leeyihiin waa laydin gurayaa meesha nabad maaha yacni qadar baa iyaduna tiri dad isla socda oo guruuba baa waxay kicinayaan buuq ah maxay meeshii nabad maaha lama joogi karo hala yaaco social media-yiina weerar baa lagu qaaday Facebook iyo Twitter labadaba waxaa lagala dirirayaa wixii Ethiopia difaacay oo adiga waa layna geli doonaa mar dhow laakiin hashtag-gii bay hadda saareen Twitter-ku waxay kaloo Facebook-na waxay delete gareeyeen message-yadii abi waxaa laga yaabaa next few hours in waxa lagu lahaa Telegram bay u wareegeen dadkii ma aqaan Telegram de sida wax loogu qori karo oo waa telephone baan moodayay WhatsApp ko kala inuu yahay oo halkaas group-yo iyo wax saas la isku xiriiri karo laakiin uu san ahayn meel sida Twitter ko kale wax lagu shaacin karo Uganda iyo USA maxaa kale ah especially Uganda horta aan waxyar kaaga sheegay markan galbeedka anigu waxaan ku dhex jiray siyaasad extremely progressive oo mucaaradnimo ka bilaabatay 30 sano horteed baan baarlamaanka soo galay anoo mucaaraday marka waxay ahayd markii Berlin Wall-kii uu dumay shuuciga laga adkaaday prioritiska reer galbeed ay isbedeshay oo hadda maadaama shuucnimo aanan jirin oo lagu xuqin karo waxay keeneen dimuqraasiya iyo human rights waxyaabo lamid bay keeneen ku talagalkana waxay ahayd inay dad cusub ay hagaajistaan oo ku shaqaystaan generationno cusub oo dad yaryar oo dhalinyaro ah kuwii hore ilaa way ka gudbeen way ka dhamaysteen kuwii hore marka Museveni horta wuxuu ku jiray nimankii young tax la oran jiray oo ay reer galbeedka ay garab siiyeen oo iyaga hagaajisteen
waxaa kaloo ku jiray ninkii meles la oran jiray waxaa ku jiray Kagame Paul Kagame la dhihi jiray dad bay hagaajisteen oo marka Kagame marka dambe way isku wareen Afwerki baa ku jiray bilowgii hore markii ugu horeysay oo aad soo dhaweysteen Afwerki laakiin aad u caqli badan oo xikmad miiran buu ahaa isla markiiba darbigu iskaga xiray iyagii waxyaabihii ay ka rabeen oo ka mid ay tahay meel Cagnew station la oran jiray Asmara ku yaallo oo listening post Mareykanku ahayd yuu ka xiray adu wax alla wixii ka rabeenna way ka waayeen laakiin dadkii iyaga ahaa hadda waxaa ka joogaa oy ku adeegan hayaan ninka la yiraahdo Museveni ayay ku adeegan hayaan Melesna wuu geeriyooday ninka kale odayga ahaa oo Djibouti joogana wali waa lagu adeegan hayaa sigana uu jooga halka hadda waa baaba la soo marinaya waa sax marka malaha dimuqraasiya ma jirto human rights ma jirto kulli waxay ahayd wax lagu xalaalaysta cidda ka hor imaatay in lagu wiqiyo 86 iyo hadda dhaxdooda ayuu Museveni xukunka u haystaa xoog buuna ku haystaa wax ka qaylin arki maysa oo waxaa kaloo ku jiray nin Laurent Kabila la oran jiray oo Congo beriga asagana ay ku qabteen oo xoog loogu qabtay oo Uganda iyo Rwanda inta isku tageen ay garab siiyeen oo la qabtay oo markii dambe la dilay markii dambe intay iyagoon baa haddana ka dambeeyay dilkiisa wiilkiisa baa haddana ku wareejisteen nin oday buu ahaa asagoo xisaabtamo oo shuuciyiintii ma xiriir filan lahaa badan lahaa oo Cuba iyo dad badan oo weli quwada haddaba joogaan iyo xiriir la lahaa waa la isdaafiyey xisaabu galay oo dahabkan iyo dheemankan iyo waxaan la guranayo Congo laga guranayo DRC Congo waxaan ma socon karta markuu yiri wala khaarijiin wiilkiisa lagu bedelay waagan doorashada u dambeysay hadda waxa ka dhacay Uganda meel ay ka dhacday adduunka malaha waa la laayay dadkiisa waa la xasuuqay saxwe si xun baa loo laayay meydkooda ayaa meel kasta yaal cid ilaahay untay oo ka qaylisa adduunka ma jirto ninkii tartamayo la cayrsanayo askartu cayrsanaysa baa life laga soo duubay la tartamay Bobby Wine waxaa ka horeeyay message isagii ordayo cararaya anagu wax badan baa dhacay anaga weli waxay ku sii fiican tahay anaga waxay kaga sii duwan tahay reer galbeed labada dhinac ba iyagaas kale labada is haystaan haatee mid kasta waa mid iyaga inuu u shaqeeyo diyaar wey inuu camiil u noqdo diyaar wey muhiimadda marka aan kuu soo wado waxaa weeyaan dimuqraasiya iyo waxyaabahaasi those are all overrated maaragtay claptrap waxaan waa iska NGO laakiin danihii reer galbeed waa danihii reer galbeed dimuqraasiya مصر كما قصبان bahalkii dimuqraasiya kuma qasbayaan imaaraadka khaliijka kuma qasbayaan human rights sacuudiga kuma qasbayaan dadka wadamahaas oo dhan qatar ka daashay kuma qasbayaan waxaas oo dhan ma aha iyaga shacabka inuu jiifo halkaas u jiifo oo danahooda ka gaaraan marka dantooday wataan mooyee dantoodana waa mid ka soo bilaabatay adoonsi ninku adoonsan jiray si kastoo isku bedelo si kastoo isku bedela markii hore adoo qaawan buu ka adoonsan jiray oo sarwaal yar lagu xiray caankaasoo kale muruqaada banaanka u yaal cuntadii adiga aad beertay beerihii aad ugu hagaajisay muu kusin jiray hadda waxoogaa inuu dhar ku geliyu rabaa wasa a little bit oo taay ku xirataay marka kuwan af ingiriiska yarar ku hadlaya oo reer galbeed iska dhigahayo oo dimuqraasiya ma jirtay waxaa gurahayo oo moodaya waa waxaan adiga dadka lagu adeeganayo oo macna aan lahayn weyaan absolutely waxaa jira wadamo dhowra oo westernku si kasta intay yeeleen ay ridi waayeen waxaa ka mid ah Cuba waxaa ka mid ah Eritrea waxaa ka mid ah hadda North Korea wadamadaas oo waxay ka badbaadeen baan kuu sheegay ay ka siman yihiin haddana ay Taliban qaadatay no NGO wax NGO absolutely inay arrintaa barato weeye oo ninkan NGO-ga u shaqeeyo oo siyaasiga iska dhigo inta tayga xirtay isaga ka dhigay nin khatarta ah oo kulay adduunka iyo maaragtay waagi hore waxay dhihi jireen waa lay wataa saan u caayeen hadda waa iska daayeen waa lay wataa waxay u bedeleen inay dhahaan siyaasadda adduunka ka gadmi karto oo adduunka maaragtay adduunka maxaa iga galay aniga siyaasadda ka gadmi karta adduunka waxaa ka gadmi kara inay ku boobaan oo qaataan haddaan iyaga u shaqeeyo un baan adduunka qancin karaa laakiin haddaan dalkayga u shaqeeyo wax dadkayga ka gadmi karaan la imaanaya maaha wax dad kale ka gadmi kara Kenya waxba kama gelin Soomaaliya waxa ka jira
inay ku faraxsanaatana sax maaha markaan arko iyagoo caraysan oo madaxweynahan u caraysan oo kulligood le waa saaraynaa oo inaan ka saarnaa rabnaa waxaan gartaa inuu ka fiican yahay wixii meelaha joogi jiray sababta wax la watay ahaayeenoo rukuuc iyo sujuud wada jira qodobka iigu dambeeya burburkan iyo dagaalkan iyo dhaawacan la geliyey Ethiopia geeska Afrika saameyn intee la eg buu ku yeelan karaa seese looga hortegi karaa horta su'aal markii hore aad i weydiisay oo aanan ka jawaabin baan kulley gadaal kaga jawaabi doonaa waxaad tiri isbeddelkan hadda ka dhacay geeska Afrika iyo Ethiopia ka dhacay maxaa fursad ah ayaa Soomaalida u soo baxday darra taa waanu ka hadli doonaa oo waxaan aniga dhaamisanahay fursadda maanta ee Soomaali haysata weligeed ma soo marin 140 sano anugu waxaan ku iri war ciidan 100,000 oo ciidan hagaajiya Ethiopia dhulkay taala carrayna marsan tahay maanta sax dhalinyaradu qoryaha qaateen oo ha is qoreen ninkii dhulka intuu ka qaatay Ethiopia dhabaan dhawdo oo carradii ka tirtiro ka dhaqa kaasa iskale absolutely ninkii difaacda iskale ninkii difaacda ayaa iskale maxaa ka hortaagan inay qabsadaan sabab oo ay iyagu madax ka noqdaan maskax gaaban mid aan ka sheekeynay oo aad u liidato oo kor fiirinayna hoos fiirinayso elite oo dhan sida jigjeeg gacanta u gelineed bay fiirsan fiiri maanta haddii aad tiraahdo 50,000 baan u baahan oo ciidan inaan ka hagaajiyo meeshay u badan tahay xataa 5,000 way aad ku heshay laga shaqeeyo mooyee oo geeljiraha la soo ururiyo mooyee sax wey ninkii intuu gala parastatalka Ethiopia ka shaqaysan lahaa shirkadaha dawladda ay leedahay wasaaradaha Ethiopia kulli ka shaqaysan lahaa afarta gees Ethiopia la geen lahaa shaqaalanimo loo geen lahaa oo Soomaaliga wuxuu ka doorbiday inuu jigjiga joogo shaqeeyar uu haysto meesha wax ku boobo wadi gartay Soomaa absolutely annaguna musuq Soomaali waa meheradeeda Sayid Maxamed Cabdilxasan mar hore u yiri meherad bay u tahay waagar waxaa hadda ka hor aniga waxaa la yaab lahaa niman dhalinyara iyo imaadeen waxay dhaheen wixii oo qof aniga familkayga uu yahay ay maxay ahayd caafimaadka gaarsi u weyn yahay waxaa la yidhi meesha iyada ee cost sharing clark waxaa la dhahaa oo the equivalent of $100 qaadanayaan hal igeeyo war shaqo waxaad hadda ku jirtaa $500 aad qaadanaysa maytaa lufluf bay leedahay dhaadhac bay leedahay lacagta intii la aruuriya cost sharing baa la dhahaa oo dawooyinka lagu soo gadi lahaa oo maxay ahayd expansion infrastructureka lagu samayn lahaa wax badan lagu samayn lahaa yaa lagu kala goosan ilkaha lagu kala goosan meesha iyada marka qofkii mishaarka ama wuxuu fiirinaya wuxuu boobi waxaa la arkaa meesha uu $100 qaadanayo inuu $3,000 uu bil kasta boobayo waagar saddexda county oo Soomaalida ay degan tahay Kenya Wajeer Garissa Mandera weeyaan wasaas midda ugu yar baa sanadkii la siiyaa $100 milyan waagar subxaanallah wax ilaahay uuntay oo lagu qabtayna lama yaqaan arki maysid waagar kan u weyn iyo kan u hoosta ka shaqeeya moob bay ku jiraan shacabkoodii kama dan leh daryeelkii kama dan leh daawadii la siin lahaa xoolihii xanaanada la siin lahaa abaaraha hadda jiraan wixii loo qaban lahaa hal meel oo abaarihii ay wax ka qaban hayaan hadda ma jirto lacagtii awe as adoo arkayso indhahaada ay soo taagayaan oo shacabka ay fiirinayaan yuu jugsin nin baa gurigiisi la wareejinaya maalin dhaweed baalas dhistay baalas ha ka jug buusin gaarisa ninka ka gudoomiyaha yaa la wareejinaya guri uu leeyahay oo la yiri waxaas guriga isagaa alla yaabay waxa meesha dhacay inta kale intii hadayna oo maxay ahayd $1 milyan $2 milyan $500,000 $200,000 lala orday waxaa lagu laaluushayaa hay-adihii dowladda oo baaritaan ku samayn lahaa waxa
marka horta dadkii dibadaha ka imaadayna materialismkii baa ku batay beriga hore Soomaalidu lacag badan ma oolin laakiin qaniimada ma jirin hadda jirto laakiin waxaa jira social values aan caadi ahayn anuu aabbahay oo shaqaale dowlad oo 150 shilinka Kenya qaadanayaan xasuustaa inta marti oo guriga anaga joogtan ilaahay baa sheegi kara farabadnidoodii wix noo imaan jiray wuxuu maalin kasta uu kala dabari jiray waagar way barakaysnayd wix iyada ahayd absolutely waagar xoolo dadweynena ma ahayn xoolihii asaga uu shaqaystay oo maxay ahayd shaqaalu ingiriiskii uu shaqaalu ahaa tiibaa dadka ku filneed ilaahay mahadiis maasha Allah hadda kii u weynaa meeshii gabanarka u weynaa $100 milyan oo taalla ayuu jug siin iyadoo la arkayo war ka soo bixiy afkiisa qaab caloosha gashay waxa fiirsanayana waxa weeyaan lo dhamaanayso iyo geel dhamaanaya iyo gari dhamaanaya iyo cawl dhamaanaysa iyo gabar maartay baabaasan oo say waqti ilaahay shay karo korkeeda iyo maharageeda ay isku dhageen iyo wax uu ka danleeyo ilaahay untay malaha inna lillahi wa makasa ka fikiri makasa taariikhda Tigray ummadda u geysata ka fikiri oo dhii ummaddaasaytu wax isbedel loo Soomaalidu inay ciidanka qortaan dhalinyaradu inay ciidanka qortaan Mustafana uu albaab furo oo yiraahdo soo gala saf soo gala line soo gala oo kulli la diiwaan galiyo oo si degdeg ah loo tababaro bil gudaheeda tababarka qoriga sida loo rido Soomaalidu waa ciidan diyaarsan sidooday diyaar ku yihiin oo hataa kuwa Soomaaliya jooga loo furo oo ma garanaysaa ay la diiwaan galiyo askar la furo saasa kula talinaysaa Soomaa ha waa ku dhex jira hadda wax weyn buu hayaa 5 kun buu mar qoray uu wadaa inkastoo ay peeska ay ku socotay iska yar tahay inta waa laga daba shaqeynaya ninkii inta kuwii dibadda intay tageen taxi driver iyo waxyaabo ka soo hayn meelaha soo hiliblaha ka soo shaqeynayo oo basaska drivers ku ahayn Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurubka iyo oo dib u soo noqdeen $100,000 oo ay raadinayeen weligood bari meesha ka hagaajiya يا ريبل كسو قبانيان او سوشيال ميديا waxa dheer ugu jira maanta oo la qoray oo askarti baa la finaynaya askarti hadda markuu rabay inuu aruuriyo askar uu xagga dagaalka geey askarti baa reebel la finaynaya hoosta laga galaya ila telefoonka nin kasta uu haysta gadood baad ka baqaysaa war wax badan baa jira oo meeshii inkaar badan baa ka dhacday laakiin Soomaali ilaahay baa u maqan nin adag oo maaragtay gacan adag oo bir ku qabta mooyee waxaan tartiibtan iyo in loo caqliyay iyo waxay la tahay way caqliga ay dhageysanayaan ma aha kan fiican oo saliimka oo horumar lagu gaari laakiin waa midka fidnada hoos oo reerka wasaas laakiin waynu ka gudbi doonaa horta ha socoto hadda waa lis hayaa oo dhoobadii waan iskula wada jirnaa lugahan kula wada jirnaa anaga wasaas gudoomiye waxaan dhageystay Mustafa oo hadlaya ilaahay ha xifdiyo hana gargaaro wuxuu leeyahay haddii ay u soo dhaqaaqaan Addis Ababa nimanka la Tigray iyo TPLF annagoo Soomaaliyaana waxaan u dhaqaaqaynaa dhankeeda waxaan isugu imaanaynaa Addis Ababa shishadeeda annagoo ka difaacayna iyada aqbali mayno haba yaraatee ma aqbalayno TPLF xukun ay leedahay inuu ku soo laabto Ethiopia Addis Ababana ay qabsadaan ma aqbalayn mana ka yeelayn saan ku sheegay shirkii wasiirada iyo kabinetkii madaxweynuhu go'aankaasay qaateen dadka Soomaaliyeed dad badan oo waxa jira meelahaas ka qaylqaylinayo ka ugaaska sheeganaya haday waxaan iri magaaladaasaan dhowr iyo 10 sano deganahay areadan mana aqaani macnaheedu waxay ahayd nin macna kale community-ga Soomaalida ma aha waligay ma arag maalin walba waxaan u tagaa hadeer isbuucan gudihiisan ka imi 2-3 bari ka hor baan ka imi oo aan events kaga qayb galay oo Sheikh Shakuul iyo rag xataa dibadda wadanka kaga yimi aan iskala soo qayb galnay waligay ninka ma arag meel u fadhiyo waa nin iska mediocre oo meelihiisa ka shaqaysto aan cidina aqoon Soomaalida community-geedana aan ka tirsanayn dad noocaas oo kala ah iyo kuwa hadda aad sheegaysid oo taksiyada iyo driverada ahaad inkastoo aysan ceeb ahayn shaqo ay tahay haddana raba inay dawlad iyo geopolitical changes ay ka taliyaan marka musiibooyinka noocaas oo dhacaya oo hadda ina ku hareeraysan opportunity-gaas ku dhex jira baad leedahay
soomaalidu weligeed ma soo marin in xataa la soo dhoweeyo oo la aamino jaanis bay haysataa ha ka faa'iidaysata qabyaaladda iyo hoos ay fiirinaysa inay iska dayso dibadda ha fiiriso hoos yay fiirine kor ha fiiriso intaasaan ku khatimaynaa kelmaddaa noogu khatim sheekhow anu hadda waddan baan leeyahay waddankaygan kenya la yidhahdo ninka soomaaliga oo kenya ku dhashay oo aabihii awogii kala kulli ku wada dhasheen dalka soomaali oo kenya ka mid ah ka soo jeedo way isku kalsoon yihiin ninkoo iman laawo oo asagana dabadhilif oo kaba qaadi waa iska jiraan nin baaba qirtay maalin dhoweed I cross someone haggaada dadka ninka ummaddiisa khayaano oo dadkana ku adeegtaanna kii ka dangaarayna haatee markuu dantiisa ka gaaro wuu dila qiso yar baan kuu sheegi ninkii la oran jiray Napoleon Bonaparte yaa wuxuu la dagaalamaya waddanka Austria la dhaha oo asaga Francis buu ahaa nin wuxuu ahaa field commander aad u maaragtay dagaalyahan weyn burihii bay meelihii halista u galeen wuu ka adkaan kari waayey sax ii raadiyo yiri nin jaajuus oo meelaan ka geli lahaa aniga intuu iisoo arka oo Austrian sifa aan ciidamadooda gaal oo abajibin ugu sameeyo waa la keenay nin baa loo keenay waa ku gaaray hawshiisii markii uu asaga uu yiri lacag baa lagu heshiiyey lacagtii uu siinayay inuu salaamuu damcay wuxuu yidhaahday waxaan ku farxsanahay inaan maanta salli aan geliyo yiri ninka la dhaha Napoleon Bonaparte lacagtiyada ahayd oo baagga saa ugu jirta intuu ku tuuray iyo yiri salli ma gelinayo biri nin waddankiisa qaayinay ord qaaday waxaan ku heshiinay ord idhaaf ma si fiirin kari wajigaaday dalkiisii buu khiyaamay dantina wuu ka gaaray laakiin wuu necab yahay khaain waddan asaga waa u shaqeeyey laakiin dadkiisii buu baabi'iyey way jarracay ku samaynaysaa wuxuu yiri salliga gacanteyda ma gelinay nin waddankiisa hooyo khaa'inay intuu u tuuray lacagta qabsu yiri xataa uma dhiibina waa lagu tuuray wuu ku tuuray inuu u dhiibana haatee way dhiftay marka dadkaada aad khaa'inta adiga oo iimaanka alla kaa qaaday sax wey kan aad u daba dhilifaynaysan haatee wuu ogyahay berri baac ka weyn haddii aad hesho asagana asaa u khiyaanayso mise awood ka weyn markuu kaa dangaaray inuu ku diluu rabaa maxaa dhe sir badan baad ka haysaa waa sax absolute waad fahamtay sooma inuu aakhiro kuu dira aakhiro kuu diraya hadda waxaan kuu sheegi anigu hadalka waynu wadaynaa oo soomaali mar kasta waynu inaan u caqliyayno oo aan maaragtay ay wax fahmaan waan isku dayaynaa laakiin xadiidka attaqwa haahuna sameyn maxay ahayd qalbiga marka mana anuu markii hore iimaanka alla ka qaad baan dhihi jiray hadda mar dambaba dhahaba nin soomaali iimaanka alla ka qaatay iimaanka allah ku sugaa tiraa iimaanka allah ku sugaan dhaha sax wey aamiin laakiin war baan ku hayaa jiilal badan oo adiga waraysigaada dhegeysto aniga dhegeysto niman dhowr ahoo kale oo annagana lamid maxamed xasan la yidhaahdo oo maraykanka jooga sorry jooga belgium jooga oo professor ninka professor cabdiwahaab cabdisamid dadka adigoo aan badnayn oo farakutiriska oo halganka wado qiimaha iyo sharafta shakhsiga soomaaliga oo ku u nasab sheeganaya qowmiyadda soomaalida meelay joogtay iyo jinsiye kastoo ay haystaba dad badan oo yaryar oo jiil oo hadda waxaa fiirsada oo soo kacay baa jira oo aan is leenahay wax weyn bay ka qaban doonaan fil mustaqbal aad iyo aad rajo fiican baan qabaa wayna ka bedeli doonaan maasha allah laakiin maanta fursadda soomaaliya ay haysato weli lama soo marin ilaahay ha nagu sugo kuwii ka faa'iidaysta soomaaliyana hadda kuwan meesha xukunka hayaan waxyaabaha ay kaga duwan yihiin kuwii hore anaan u dhaha allay lehe xogaa yar oo nasri yar baa meel ka aftiimahaya
وقبك يسوع النهايان يعني يس Soomaali nimada هي Soomaali نمدي ما شاء الله iska hagaagi doonta hagaadhe laakiin ninka Soomaaliga oo ku riyoonaya inay Tigray soo noqon doonto inkastoo inuu noolaado kaasoo kale ayan hataa ay khalad tahay maxaa de waa nin Hitler support gareyn hayo oo Yahuud nin Hitler supporter u oo Nazi oo Yahuud even today haddii aad wax ka sheegto tirada Nazi way ficnaayeen waa lagu qabanayaa meel adduunka joogto gudaha lagu tuuraya waa house negro waadi fahamtay sooma waxyaabaha loo house negro loves his master more than the master loves himself. So the we sick master would we sick adam sheegaysa maal ogole master ku naftiisa intuu jecel yahay yo kasi jecel waadi gartay sooma hadda field nigara soo batay marka waa rajaan leenahay dhalinyaraha soo qisa yar baan ku sheegi oo runtii in Soomaali ay maqasho aad loogu baahan yahay sax amazon afay ma ka dhumi ilaa waxa la yiri ninka markuu beenta sheegay nin dhintay in aan joogin buu oo fog buu yo maragashada sax way afay baa nin qablihii dagaalada kamid buu la hadlay oo Soomaali sax asagoo special envoy IGAD special envoy for Somalia sax waan kari waayay buu yiri si kasta oo la hadlay anoo ku rafaaday ninkii uu imaaday buu yiri Gabriel marka IGAD baa lagu bedelay oo IGAD buu ka shaqeeyaa kanoo ambassador afay baa uu ka hoos shaqeeyaa sax way la hadal buu ana soo kala tuuray laba korneel baa yaa ka hoos shaqeeyay mid Marwa baa la dhahay ciidanka Kenya ayuu ka soo yu aha markii soo kana waa Gabriel oo Ethiopia labada wadan oo haday jiraan kale hena labada korneel baa iyagana shaqo yar oo hoos u hayaan wasaad afay markaas wuxuu yiri uu kari waayay ninka Soomaaliga luqad kastaan kula hadlay biir si aanan u baryin malaha Gabriel intuu farta ugu yeeri biir Gabriel kaalay hebel baa ayaan kari lahay ana ka soo dhamaan biir waxa igu darneed biir intuu u yeeray hebel kaali hebel magaciisa hadda ma sheegaya waa la garanaya qabqablayaashu marka kasma way duuban tahay iyadoo duuban bay taalahay si fiican ba uu ka hadlay afay si fiican buu ka hadlay farta asagoo ana hadalku u sheegay ma maqlay biir laakiin fartana saabu ku leeyahay kana madaxu gundin haya buu leeyahay intuu ii keenay buu wali biir ka codtag afay u sheegay inaan wixii dhamayn ma arintu waan dhamaynay biir ilaahay ma ku dhaashay fiir afay marka wuxuu yiri adduunka inuu dhulka ila go'ayaan yaa niyadda ila gashay biir war sharaf darada war anigii ka sareeyay oo walaalka ahaa anigii ka sareeyay asaga amarka siinay darajahan ha yaan saan doona ku bari waxa kale uu ka sheekay mar uu waday ninkii Abdulwali Sheikh prime minister sax oo reerkiisa hoose intay meel wada fadhiistaan lagu wada gacsiir waa prime minister idil oo wadanka qaranka Soomaaliya dadku la hadlana waxa weeyaan reerkiisa hoose waa mareexaan oo ka imaaday gada ka imaaday sax ina Sheekh Ahmedna wuxuu ahaa reegadu ah sax aabihii iyo anin adeer igu quman oo Sheekh Xasan Khaliif la dhahana waxay ahayn laba nin oo walaalaho aad isu jecel culimadii baar dheeray ahayn markaan kari weynay baan u sheegay wiil bahalka kii ah ku yaraa igu shaqeeyay fartan baa lagu yeeray iyagoo dhan oo askar aad moodayso oo saruud hayaan yaa noo imaadeen hadda diyaar baan nahay bay dhaheen waraaway meheradi aw ilaahay baan ilaahay ku oo meheradi qabki waa lumay ilaahay u ducee duca noogu khatin u ducee ummadda Soomaaliya oday baa tahay ducada noogu khatin insha Allah noogu gabagabay
هذا الكلام ما كرنو وسو نقنيسا aad baa waxaa loo dalbanayaa ninkii la oran jiray Dr. Cabdiwahaab iyo adigoo isla socday inaad noo soo gashaan dadka soo baxay oo Soomaalida ah oo la tirsadaa tihiin marka ma rabno inaan malabkiina idinka dhamaysano noo ducee waa kaa qoslinaya yar iga dhigayso waa kaa qoslinaya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka markaan ahaa sida baarlamaanka plenariga baarlamaanka iyo dadka baarlamaanka ku jira sharafta iyo ixtiraamka iyo cizo ilaahay baa iskale ay hayeen wax taariikhda Kenya soo martay meehan sax wey nin adag oo wixii uu meeshana garanay aqoontina leh mabda adag oo laga dambeeyaan ahaa oo madaxweyne iyo prime minister in kastoo nabiga dambeey anoo hadda ka hor waftiisa oo la socdo madaxweynuhu ku jiro يومدي يرو وليبر هيرك أنا اللي قصوا دورتي من ضدك صور أحمري ودبر كي قطعتي. تاني أربعة كالي هاي يستاجون أروح وشاكته. ورمدحوينها أنا نصلص عنو جاري سأن قلنا هيوس. سو ما أنا كتير واحد صدام ده ماشي بوق ما كان الله. صحوي. وهذا مغلى سهل كي سمح؟ Absolutely. si haddaad u eegto waxaad dhihi kartaa alla ilaahay waa dad maaragtay isjecel oo aan darajo iyo waxaasoo kale aanan keenayn laakiin dhankaa kama matelayo ninka askariga oo dablaha markuu agmari isaga oo dhowrsan oo kenyaanka ayuu agmari oo ka cabsan adiga laakiin aad hilba wadaagteen ixtiraam intaa in la ka heli maysid واساس وديك دن او دولدي قفك صدحات او ما غريسا ان وفديgaas inta la eg la socda madaxweynaan iskala soo degnay inta continental hotel baan gaarigiisa gelinaya anna dhanka kale ka geli oo meel aan geenaya xafladii oo aniga laygu you know basically as part of the protocol yiri speaker ninkan okay absolutely لكن كي يراو عدها صوت حمد يدور كتابته يرى هذا إن يري يستاج عندنا يربح حبان كوش شيء رباهي حبان ده ما وانت بوق ما كذا الله ماشي واي وكوسون وري كذا أنت وش صوت مني واي سيد بيجهري مركا إنك اسمين دبوح إن أو كوش شيء دقيسو absolutely you hit شعبده ثمتيت absolutely waxaa lagu oranaya waa ina xirsi ay abo ina xirsi cilmi xirsi way ina cilmi xirsi waa kii kaba silig ahaan baa la oranaya markaad xagga joogta kaba silig ahaa oo reerka su'aal ma weydiinaya hadday tahay Soomaali iyo hadday tahay Afrikaan iyo hadday East African iyo North Africa iyo meel kasta hadday tahay Yurub iyo Carab sida qabaa'ilka iyo dadka u kala taqaanay yaa ku baray وراكي عيسى وراها أو كما سلقها بورا أنت ما تجوك تعرف حتى كي كان نقرأكم مرة هنا قال قطوانو هذه كود وما قورية ما قعدنا ناس ناتيرو كوه يجيكم قورية ليس أقول شيء قبل أركان وهوجانية قبل مركو أركان يجيبوا إكسلنس واحد كلمة ونها لكن أجنبي أركان بكوية سجود بالقلي أساسا ليه؟ أنا إكسلنسي مدحويني يا برايم مينستر وحاس كريم معلومة HE إتكلم لهم لكن نكستو أجنبي وسفير هذا والده مثل يعني مدحويني يالك نكستو نكستو الصومالي ودولة الصومال والشقي وزير هاي وكسته هي و أدرس جرين هاي يا إكسلنسي بك أوجا بالله وأساس marka in ismayn dabbuuxso Soomaali isma dhageysato hadal ma kala qabsan qaadato waxyaabaha cudurrada maaragtay Ilaahay inuu naga daaweeyo aan Ilaahay ka baryanay kamid yihiin marka insha Allah way hagaagi doontaa insha Allah dhib male aad ba u mahadsantahay gudoomiye sharaf bay noo tahay inaan ku helno waa soo noqon doontaa insha Allah taala dadka in la tacliimiyo ka daay 30 sano waday marka Allah ku barakeeyo Soomaaliyay إلهي سبحانه وتعالى ذلك إنه ينوح حفظيه ذلك قيمها له أو كرتيدا له أو شرفت له أو نلوش له أو قبك له أو نول أو قلبي كنول الحياة في القلوب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور تتبع قلبي كإن دبيلي إن دبيل قرطة هنا وكاه
dadkaas inuu ilaahay noogu bedelo dad nool oo dhaqan oo qable oo kor fidinaya aan rukuuc iyo sujuud ku jirin kor eegaya wixii edab badanna edab yeelo ku dhahaya ayaa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaana watacaala ina horgeliyo dadkaa u duceeya dalkana u duceeya ummadana u duceeya khayr badan baan ku rajaynayaa insha allah shaqo fiican baad haysaa adna khayr badan allah ku siiyo allahuma آمين الله يقبل يا دعاء إن شاء الله بارك الله فيك بالله التوفيق السلام ورحمة الله